afartani xirfadood mid ka mid ah haddii aad barato saacaddii waxaad ku shaqayn kartaa lacag u dhaxaysa $20 ilaa $50. xirfadahani way kala duwan yihiin, kuwa kasii lacag badan ayaa jira oon halkani kugu sheegi doono. xirfadahani waa kuwa zaa'idka loogu baahan yahay 2024 waxayna ku jiraan listiga shaqooyinka ugu badan ee laga qabto websaytyada freelancerka loogu shaqaysto. muuqaalkani dhexdiisa waxaan kugu sheegayaa sida aad ku baran karto, muddada ay kugu qaadanayso, iyo halka aad ka helayso softwareada aad ku baranayso iyagoo free ah. dhamayso muuqaalkan. intaanan kuu sheegin xirfadahani waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka la garayso si dad badan u gaaruna caawiyo. xirfadda koowaad waa graphic design. graphic design waa xirfad ballaaran, leh software kala duwan. waxa ugu muhiimsan waa Photoshop iyo Illustrator. labadani software inaad barato waxay kugu qaadanaysaa muddo 2 bilood ama ka yar. waxay ku xiran tahay dadaalkaaga. labadani software waxaad ka baran kartaa YouTube-ka iyagoo si free ah. waxaadna helaysaa koorsooyin ku baxay afka Soomaaliga iyo Englishka. xirfadda labaad waa video editing. muuqaal sameeye kasta wax ku soo gudbiyaa baraha bulshada wuxuu u baahan yahay cid u edit-garaysa muuqaalada uu la wadaagayo dadka, ama ganacsiyada ayaa u baahan in video loo edit-gareeyo. adigana waad noqon kartaa waadna baran kartaa. waa Adobe Premiere Pro iyo After Effects. labadani software waxay u baahan yihiin laptop awood badan, laakiin waxaad baran kartaa waa ka fudud CapCut. CapCut wuxuu kuu suurtagelinayaa in mobilkaaga aad ku edit-garayso muuqaalo la mid ah kuwa labadani software aan soo sheegay lagu edit-gareeyay. CapCut wuu ka fudud yahay labadani software. CapCut haddii aad barato waxaad ku samayn kartaa muuqaallo qurux badan oo leh effects iyo transition. xirfadda saddexaad waa web design. waa naqshadaynta website intaan la kood garaynin. waxay leedahay suuq fiican hadda la taagan yahay, maadaama ganacsi kasta oo digital isu bedelayo, qasabna ay tahay in website lahaado ganacsiga. Adobe XD ayaa loo adeegsadaa in lagu naqshadeeyo. muddo 2 asbuuc ayaad ku baran kartaa, mana adka. waxaadna ugu shaqayn kartaa si online ah adoo akoonna ka furanayo websaytyada freelancerka loogu shaqayso sida Upwork iyo Fiverr. ama waxaad profile ka samaysan kartaa LinkedIn. halkaas ayaad kusoo post garaynaysaa websaytyada aad naqshadaysay si dadka ay u arkaan. kadibna halkay aad ka helaysaa macaamiil badan oo raba adeegaaga. xirfadda ugu dambaysa ee aan rabo inaan kula wadaago waxay tahay waa web development. waa samaynta website adigoo adeegsanaya luqadaha kala duwan ee programmingka. waxaadna ku baran kartaa muddo 6 bilood ilaa 1 sano. wayna adag tahay. waxaad ka baran kartaa YouTube-ka. waxaa jira YouTube waaweyn si free ah ku bixiya waddada aad u marayso iyo casharadooda. haddii aad barato saacaddii waxaad ku shaqayn kartaa lacag u dhaxaysa $50 ilaa $100. intaas xitaa way kasii badnaan kartaa. YouTube-ka ugu caansan ee dad badan ay ka bartaan anigana aan ka bartay waa freecodecamp.org. waxaadna ka helaysaa casharo free ah. waxaadna YouTube-kaasi ka helaysaa muuqaalo kaga hadlaya waddada aad u marayso iyo meeshaad ka bilaabayso. ugu dambayntii, waxaad isweydiinaysaa halka aad ka helayso softwareada aan soo sheegay. jawaabtana waa waxaad booqataa website-ka Get Into PC. waxaadna ka helaysaa softwareada aan soo sheegay sida Photoshop, Illustrator, iyo Adobe Premiere Pro iyo After Effects. CapCutna waxaad kala soo degi kartaa Play Store ama App Store-ka. halkan ayaan kusoo afmeerayaa muuqaalkan, waxaana filayaa in wax badan aad ka faa'iiday.